بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، رمضان مبارك. ومركلة إي ولاشين زكية آدن ويدين ودا موقال كلو عسب. موقال كينان maanta wuxuu ku saabsan yahay afur dhameystiran. Afurkeenan waxa uu ka kooban yahay bariis iyo buskeeti. Marka koowaad waxaan ku hormareynaa buskeeti. Hilibka buskeetiga la dhahayo waxaa jira qaab uu u yaalo oo loo sameeyo oo loo kariyo. Hadda qaab ahaan midka inta noo yaalo aan u jeedno sida uu yahay hilib jilicsan inuu yahay. Qofkii hilibka aad ka soo gadanaysa sida uu sheegaysa waxaa leedahay hilib buskeeti u baahanahay. Hilibka markii sidan lagugu soo jarjaro waliba aan dhexdhexaad oo hadda ii yahay waa laga waaweynayaa saan. Kadib waxaa sameynaynaa hilibka waa la tumayaa. Waxaa lagu tumaa laba shay. Birtan ay u jeedaan oo sida buriska u sameysan loogu talagalay in lagu tumo si uu u fidsamo. Sidoo kale waxaa ku tuma kartaa daad birta haysanin kasha xawaajiga. Marka hadda waxaan sameynayaa waa tumeena inta kale inta weynoo tuman yihiin xabadkan waxaa ugu talagalay inaan isla aragno maadaama waqti uu yahay afur uu nahaayo. Intaan isla kanaan tumeena kadib waxaan sameynaynaa waxyaabii caraftan ku darsanaynaa hadii Ilaahay idmo. أحبابي hilibka saasa u soo wada tumanay sida uu yahay qafiifkaas looga baahan yahay waa sida hadda aan u sheegnay. Waxaan ku soo darsanaynaa marka waxyaabihii carafta ahaa. Waxaan ku soo darsanayaa caraf oo ii ah toon oo aan soo tumay ilaa iyo dhowr xabo 3 xabo camal gaarayso. Qofba carafta uu jecel yahay asoo ku darsan karaa. Hadda doonta xawaajiyaal ku darsan kartaa. Xawaaji dhuudhuub, xawaaji burbuur hadduu ahaan lahay. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa xawaaji kaari cusbo iyo sidoo kale inta filfil xawaaji kaari cusbo iyo filfil way sukay dhaxyaaceen xoogaa intaasaan ku darsanaynaa caraf noo ah. Waxaan kaloo ku darsanaynaa liin dhanaan aan ku miiranaynaa xoogaa liin dhanaan ah. Hadaad jecleen liin dhanaanta mushkilo ma lahan laakiin aniga waa ugu talagalay. Waxaan kaloo ku soo darsanaynaa xoogaa yar oo saliid ah. Saliid iskama badinayno. intaas isku qaseena ama isku rifaaqanayna meelaan dhiganayna kadibna saliid intaas qaanda camal aan saas u buuxin aan ka soo dhigay. Waxaan sameynayaa intaas caadi isugu rifaaqanayna ama isku qasanayna sida caadiga la iskugu qasto gacantaadan ha ku dhaqanaato. Inta marka isku qasanno meelaan dhiganayna qofkii jecel hore uu ka duuba karaa laakiin waxaan rabaa inuu meel ii yaalo inta aan sii sameysanayno bariiska. meelaan soo dhiganayna insha Allah bariiska iskugu imaano. Waxaa dabka soo saaran digsiga bariiska ahaa. Waxaan ku soo darsanaynaa 3 xabo oo dhagayara ah. Sidoo kale waxaan ku soo darsanaynaa heel oo aan tumnay. Heelka markii la tumo caraf sameeyaa. Intaas ku soo darsanay. Waxaan kaloo ku soo darsanaynaa saliid oo xoogaa aan saas u badnayn qiyaas yar ah qaanda camal dhan. Intii bariiska noocan loo karinayo saliid waa la yareeyaa. Saliidaas ku soo darsanaynaa. bariiskana bariis wuxuu ahaa hore iigu yaala saacad camal biyo iigu dhex jiray. Hadda marka biyaha aan ku saaranayo waa inaan yareeyaa maadaama aan hore u soo dhigay biyo oo la soo dhigay. Waxaan kaloo ku darsanayaa cusbo yar oo aan ku soo qiyaasanayo ayadana. Intaas marka isku soo karkarana waxaan ku darsanaynaa bariiskii oo noo diyaarsan. Kadibna waaba noo diyaarsan yahay dhulku noo yaala. Cusbaan ku soo daray qiyaas maadaama buskeeti iyo suugi wax lagu cun rabo. Aan isku soo laabana markuu noo karkaro. Bariiskii uu soo karkaray waxaa ku shubanaynaa hadda bariiskii oo noo diyaarsanay aan ku soo qaandeysanayna. Kadib bariiska markaan ku soo wada dhameysano waxaan kor uga darsan doonaa karooto iyo basal baar noo diyaarsan. Karooto iyo basal baar hadhow midabku wuxuu ku soo baxaa bariiska qurux maadaama asagana cad uu yahay. Basal baarta ay cagaaran tahay karootadana ay faanta ay tahay. Markuu noo soo dago uu soo bislaado soo ku soo baxo muuqaalkiisa aan wada arkaynaa hadii Ilaahay idmo. Haddana waxaan galaynaa qaybta cabitaanka. Cabitaanka maanta aniga waxaan shiidanaynaa ama shiida rabnaa beetraaf beetroot English sida lagu dhaho. Waxaan kaloo ku daray moos. Waxaan meesha ku jiro oo caleemaha waxa waaye reexaanta cuntada lagu darsaday caadiga oo cuntada carfiso. qofkaan aqoonin mint leaves loo yaqaana mint leaves ala dhahaa reexan. Intaas isku shiidanaynaa iyo liin dhanaan jeex ah aan ku darsanaynaa. Sida cabitaan loo shiido waa la yaqaanaa. Markaan soo shiidano oo aan garaafaha ku soo habeysano aan isla arkaynaa asagana insha Allah quruxdiisa iyo sida uu ku soo baxo.
axbaabi ugu dambeyntii afurkeenii saana usoo hagaagsanay. Bariiskii aan soo diyaarsanay, burkii, saladkii ama ansalaatadii, biskeetigii oo saa noogu soo baxay inkastoo aana soo duubin maqribna way ahayd. Cabitaankeenii waa kana asagana beetaraafkiisu ku soo baxay. Mooska halkaasuu noogu diyaarsan yahay. Waxaan filayaa maanta inaad ka hesheen muuqaalkan. Waa walaashin Zikiye Aadan oo idin leh muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono. Amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.